maanta maxkamad la soo taagay eedeysan wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaana warbixintaasi noo soo diray wariyaheena Faysal Yuusuf Kacaan. waxaa maanta la hor keenay maxkamadda gobolka Murujeex ee magaalada Hargeysa eedeysan wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon kaasi oo ku eedeysnaa kiis kala duwan oo eedeeyay inuu aflagaado u geystay xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale inuu waxyaabo badan ka iskuulka Abaarso Tej ee ku yaala duleedka magaalada Hargeysa. eedeysan Cabdimaalik Muuse Coldoon oo kiiskiisa maanta maxkamaddu daafurtay ayaa waxa ka hadlay qareenada u doodaya Mr. Coldoon waxaana yiraahdeen dacwadda Cabdimaalik Muuse Coldoon maanta ay bilaabantay fadhigii koowaadna uu yahay walow gadaloolooyin ay noo muuqdaan haddana marxaladii koowaad iyo fadhigii koowaad maadaama ay tahay kama hor dhacayno waxaanu kaliya bulshada u xaqiijinaynaa in ay maanta fadhigii koowaad ee dacwaddaas qabsoomay hal baaran la dhageystay marka taa laga yimaado eedaha la haysto dad bulshada ugu xasuus waa saddex eedood waxa Cabdimaalik Muuse Coldoon loo haystaa saddexda eedood laba waa isku hal dhacdo waa iskuulka Abaarso warar been abuura iyo warraad ku ceebeynayso aad ka sheegtay ilaa haddana ma aragno dhibanihii Abaarso oo yimi maxkamadda waxa kale tahay inuu qaranka Soomaaliland propagandeeyo yiri taliskii Cabdi Yilay tubtiisi buu hayaa ama tubti qaran muxuu talisyada hoogay ayuu hayaa laftarkeeda taas markaas imakayada dhaxgelimayno dacwaddu maadaama bilowtay waxaanu jecelahay ka gareeqaan ahaan xilliga ay bislaatay inaan ku hadalno ayaanu si waafiyo faahfaahsan uga hadli doonaa marka inta laga yimaado anigoo magaca ururka qaranada Soomaaliland ku hadlaya oo ah xogayi guud ee ururka qaranada Soomaaliland waxa aanu walaac xoog la ka muujinaynaa aadna uga walwalsanahay maanta in warbaahintii xor tahayd iyadoo awal hore waxa bay dhici jirtay markaaba gaf bay ahayd laakiin garsoorka ayaa laga xalaashan jiray oo waxa jiray waxyaabo garsoorku marna ku diido xukuumadda marna ka yeelo laakiin maanta inay xukuumaddu iyadu gacantii sharciga gacanta iyadu ku qaadato oo iyadu albaabada iskugu laabto waa arrin walaac cidale ka urur qareen ahaana aanu aad uga walwalsanahay natiijada ay dhalin doonto. Faysal Yuusuf Kacaan wararka telefishinka caalamiga Royal Hargeysa.